munaasabadani oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Gaas dhalinyaro haween iyo waliba fanaaniin ayaa waxaa lagu taageerayay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ugu horeyn wasiirka difaaca ahna Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Xuseen Carab Ciise oo munaasabada hadalkooban ka jeeday ayaa sheegay in wada shaqayn wanaagsan ay dhex martay Ra'iisul Wasaare Gaas intii ay wada shaqaynayeen Cabdiweli waxa weeyaan ku shaqaalihiisa waan ahayn marka waxaan ka hadlaynaa oo kana naqana sidii dowladda dhaqameedkan u shaqaynay insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan future kala shaqayno waxa weeyaan wax ability baan helnay inta marka hore waxa ugu mahad celinayna inuu nasiiyay fursadba inaan positionadan ku jirno aan helno marka taa ugu mahad celinayna Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Cabdulwahaab Ugaas Khaliif Ugaas Xuseen oo isna xafladda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Ra'iisul Wasaare Gaas uu bito u yeeshay intuu xilka hayay in wadanku uu ka saaro kumeel gaar oo in badan wadanka ku jiray sababixintii badbaadintii soo celintii iftiinkii qaranka Soomaaliyeed oo ka baxnay kumeel gaar barina sidii loo sheegay ay ku egtay xilli kumeel gaarka ah ummadda Soomaaliyeed ku xidhiidhiso marka waa laba farxadood haddaan u soo laabto walaalkay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli sidii hore loo sheegayba waxay la tahay uma baahna in laga sheekeeyo waxa maqraati ka ah ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka wuxuu noqday nin nasiib u yeeshay inuu noqdo hogaamiye ka saaro ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii ay ku jirtay 20 sano rajada furida ummadda Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay horumar ka gaartay intii ay jirtay dhanka ammaanka iyo siyaasadda dibadda gaarka ay xukuumaddeedan u lahayd xukuumad baana qaran iyo waxa loo baahan yahay runtii cid kastoo timaada mustaqbalka wadankan madax noqotay waxa looga baahan yahay waajibaadka ka saaran dhalinyarada Soomaaliyeed inay xilka yiraahdo saaxiibaday tiimkayga aan wada shaqaynay ee xukuumadda badbaado qaran ayaa in badan ka sheekeeyay qabadkii xukuumadda runtii aadna ugu mahadnaqaya hadallada wanaagsan ee saaxiibtaydu halkan ka yiraahdeen waxaan isleeyahay in badan amay ku siiyeen ammaan runtii waa la samaanaa shaqada qofku qabtana waa lagu ammaanaa laakiin waxaan leeyahay dhammaantayo waxaan isku ammaaninahay waxa weeye waa waajibaad qaran oo nasaarnaa weeye aanu gudanaynay dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hambali u diray dhammaan shacab ku nool magaalada Muqdisho iyo waliba daafaha caalamka meel walba ay ka joogaan hambaliyadaasi oo u diray maalinta aadka ugu muhiimsan qof walba oo Soomaaliya u diray hambali ku aadan ciida inuu suurtagelisay caalamka isugu nimaadno si farxad la ku ciidno aadna ugu mahadnaqayaa runtii Maxamed Ibraahim Gaabo telefishinka caalamiga ee Soomaalisat magaalada Muqdisho.